Present continuous tense. Tense-ka koowaad qeexitaan. Present continuous tense waa tense loo isticmaalo ficil hadda socdo. Auxiliary waa caawiye. Caawiyeys waxaa waaye is, am, are. Is waxay qaadanaysaa she, he, it. Amna waxay qaadanaysaa I. Are-na waxay qaadanaysaa they, we, you. So mid walba ku shaqayn doona insha Allah taala waxaan ku arki doontaan qaybta hore xajinta. Marka hore waxaa wanaagsan inaan fahanno waa maxay affirmative iyo sidoo kale waa maxay negative equation waa maxay. Affirmative-ka waa subject plus auxiliary. Auxiliary-ga is, am, are ayaa wax la isku yiraahdaa auxiliary-ga tense-ka. So waxaa leenahay marka subject plus auxiliary plus verb plus ing plus object. Negative-ka subject plus auxiliary plus not plus verb plus ing plus object. Question-ka auxiliary plus subject plus verb plus ing plus object. Example 1. Affirmative. I am reading a book now. Anigu waxaan akhrinayaa hadda book. I oo subject ah, am auxiliary ah, read oo verb-ki ah, ing oo tense-kood ku shaqaynayay, a book now oo object-ga. Negative. I am not reading a book now. Aniga ma akhrinayaa hadda book. I oo subject ah, am oo auxiliary ah, not oo diidmada oo negative-ka ah, read oo verb-ki ah, ing oo tense-kood ku shaqaynayay, a book now oo object-ga. Question su'aal. Am I reading a book now? Miyaan akhrinayaa aniga book hadda? Miyaan akhrinayaa book aniga hadda? Am oo auxiliary ah, I oo subject-ga, read oo verb-ki ah, ing oo tense-kood ku shaqaynayay, a book now oo ah object-gi. So mar walba waxaa wanaagsan inaad fiiriso ficilka iyo suu u dhaqmayo. Hore waxaa usoo baranay affirmative-ka subject-giisi iyo plus-diisi, sidoo kale negative-ka subject-gi plus-da, question-ka auxiliary iyo sidoo kale plus-da. Example 2 tusaalaha labaad. Affirmative. He is watching TV right now. Asigu wuxuu daawanayaa TV hadda. He waxaa waaye subject-gii, is waxaa waaye auxiliary-gii, watch waa verb-kii, ing waa tense-kooda ku shaqaynayay, TV right now oo ah object-gii. Negative oo diidmadii, he is not watching TV right now. Asiga ma daawanayo TV-ga hadda. He waxaa waa subject-gii, is waa auxiliary-gii, not waa diidmada negative-ka, watch waa verb-kii, ing waa caadiga oo tense ku shaqaynayay, TV right now oo ah object-gii. Question su'aal. Is he watching TV right now? Asiga miyuu daawanayaa TV-ga hadda? Is waa auxiliary-gii, he waa subject-gii, watch waa verb-kii, ing da tense-kood ku shaqaynayay, TV right now oo ah object-gii. Example 3 tusaalaha saddexaad. Affirmative oo ah hadal firfircoon. They are playing football at the moment. Ayagu waxay ciyaarayaan kubadda cagta. They oo subject-ga ah, are auxiliary-ga ah, play oo verb-ki ah, ing oo tense-ka koowaad, football at the moment oo ah object-gii. Negative diidmo. They are not playing football at the moment. Ayaga ma ciyaarayaan kubadda cagta. They oo subject-ga ah, are auxiliary-gii, not oo negative-ka oo diidmada ah. Mar walba hadiiba negative lagu diro waa inaad soo gelisaa not oo diidmada oo negative ka socoto. Play oo verb-ki ah, ing oo tense-kood ku shaqaynayay, iyo sidoo kale object-gii oo ah football at the moment. Question oo su'aal ah. Are they playing football at the moment? Ayaga miyay ciyaarayaan kubadda cagta? Are oo auxiliary-ga ah, they oo subject-ga ah, play oo verb-ki ah, ing oo tense-ka qaacidadiisa ah, football at the moment oo ah object-gii. Ereyada kaliya u baahan in hore laga siiyo ing, like sida play, read, plan, feel, write, etc. wixii la mid ah. Ereyada u baahan in la bedelo si loogu daro ing, sida take,
waxaa u dambaysa ida tuuraysa waxaa gelinaysaa ing sida mark iyo make. ida tuuraysa sidoo kale waxaa gelinaysaa ing fake. ida idan tuuraysa waxaa gelinaysaa ing plan. ida tuuraysa idan waxaa gelinaysaa ing etc iyo wixii lamid ah.